مسؤولين الدولة hoose degmada Burco ayaa shir jiraayad oo maanta u qabteen xaruntooda ku sheegay in talaabo adag ka qaadi doonaan dadka ay ku baaqatay cashuurta dowladda hoose aan wali bixin sidoo kale waxa mas'uuliyiinta dowladda hoose ay soo bandhigeen gaadiid cusub oo ay soo iibsadeen oo ah nooca laga shaqeeyo dhismaha wadooyinka cusub gaar ahaan kuwa qaada daamurka ee loo yaqaan booyadaha maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad xogayaha dowladda hoose Burco Ismail Maxamed Sheekh iyo xildhibaan Xuseen Faleed oo shirkaasi jiraayad ka hadlay ayaa waxa kamid ah hadaladoodii anta halkan waxaan ku soo bandhigaynaa gaarigan waa baabuurta isbarayga daamurka shubta waxaan ka soo iibinay Shanghai China waa gaari aan mustacmal ahayn oo aan hore noociisa loo keenin intaan ka warqabno Somaliland baabuurta la keenay waa baabuur mustacmal ah laakiin gaarigan waa gaari cusub oo 0 kilomitir inta umka soo socday ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ina anfaco oo degmada iyo dalkaba anfaco waxaan kala sameyn doonaa hadii ilaahay ka dhigo inaan qaar kana dirno insha Allah waan gaadhaynaa oo maalinba asadka iyo waxyaabo loo baahan yahay horumarka keeni kara in la helo waa muhiim cashuurtana aanu idinka qaadano iyo lacagtana aanu idinka qaadano waa inaanu muujinaa wixii la idinka qaaday wixii la idinku qabtay waa misaalaadkii ugu dambeeyay gaariga imanka gaari qaali weeye qiimihiisana la wada garanayo oo gaariga daamburka qubaya marka waxa weeye maalinba shay baan subina qaar kale oo badan insha Allah waan soobina soo kordhinaa waxaanu dadweynaha idinka rabnaa reer Burco waxa cashuurtii baa la idinka rabaa sanadkan 2014ka cashuurtaasoo laba nooc ah waa cashuurtii ardiyada guryaha dhisan iyo cashuurtii dhulka banaan cashuurta marka bixisaan dadweynahan ayaa anagana nala xisaabtami kartaan oo naga dooni kartaan wixii hadda beedankada lagu qabtay markaasaan anaguna idin muujin karnaa cashuurtu waa waxa aynu wax ku qabsanayno dowladda hoose Burco ayaa dadaal weyn ugu jirta horumarinta iyo kor u qaadida bilicda magaalada isla markaana mashaariic kala duwan ka hirgelisay magaalada Burco Kays Axmed Digaale Home Cable TV Burco.